culimada diinta madax dhaqameedyo waayeel iyo waxgarad kale oo maanta shir jaraad ku qabtay fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Ceerigaabo ayaa waxay halkaas qeyladaan dheer ka muujiyeen xaaska Sheekh Maxamed Cali Biixi oo ka mid ah culimada waaweyn ee reer Sanaag taas oo kadib muddo badan ay ku xidhnayd xabsiga magaalada Hargeysa dhawaan lagu xukumay xabsi 3 sanadood waxaana culimada iyo waayeelada kale iyagoo arrintaasi ka hadlayeen hadaladoodii ka mid ahaa sidan dukumenti ku qoran afka Carabiga oo ka kooban 2 buug iyo 7 xaashadood ayaa kiiska ugu horeeya ee gabadha lagu soo eedeeyay uu yahay buugga la sheegaya waa buugga kanaanu ka soo qaadnay waraaqihii ugu muhiimsanaa waxa ku qoran abtirsiyada Sheekh Isxaaq intaasi haday dambi noqoto waxay noqonaysaa dadka reerka ku abtirsanayna iyagana wada dambi yihiin qoladeeda daaroodada xaaladdeedu waa ka sii fogtay hadii Sheekh Isxaaq dambi noqday talabaad waxa lagu eedeeyay dokumenti baxsi cilmi ah ama aqoon ku dhisan oo loogu talagalay in macaahidda iyo jaamacaadka lagu dhigo taas oo ka sheekaynaysa nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo laga soo qaaday kutubta shaafiiciyada hadii ay marka hore abtirsiyadeeni dambi noqotay hadeerna waxa dambi laga dhigay taariikhdeeni iyo islaamnimadeeni ba ayana la yiri waa kiis kale Interpolka yiri soo qabta qodobo noocaasa oo aan wax badan ka biirin ba gabadha lagu eedeeyay xaakimkii xukaamta la bedelay doraad ayuu ku jiray hadaan reer Ceergaabanahay culimada diinka odayaasha dhaqanka dhalinyarada mutacallimiinta madaxda dhamaantay waxaan codsanaynaa oo aanu aad iyo aad ugu celcelinaynaa gabadha muddada sanadka iyo dheeraadka dulmiga ku xidhan inaan dulmi dambe loogu sii darin xukunka jawrka ah ee ay maxkamadaas ay soo saartay ee aan cadaalad ku dhisnayn ee asaaska ku dhisnayn ee lagu saleeyay qodobadaas laga soo hadlay waxa aanu leenahay hadaan nahay reer gobol Sanaag xukunkaas waa xukun aan cadaalad iyo insaaf ku dhicin waa in hadii loo arkay madaxweynaha dawladda ay oo aragtay iyo garsoorka maxkamadda sare inay dadkaasi dad sii joogaan ahayn waxoodii ay sii malmaluuqeen in laga daba geeyo gabadhaana xorriyadeedii loo soo celiyo gabadha xorriyadeeda ha loo sii daayo mar hadii waxa lagu haystaa ay tahay abtirsiintii Sheekh Isxaaq waxaanu dawladda ka codsanaynaa inaanay arinteedaas sahlaysan waanu ku adkaynaynaa inay arinta u fiirsato waxaanu leenahay hadalkayaga waxaanu ku wajahaynaa anagu aanu ku hagaajinaynaa waa madaxtooyada waxaanu leenahay qoladii garsoorka iyo cadaaladda waanu aragnaa iminka waxaanu war ka sugaynaa waa aqalka looga taliyo dalka hadaan odayada madax dhaqameedada nahay nabadgelyada waa loo dhaarshay waxaanu leenahay halkaan ayayna ku dhaafin xaaskana la sii taayo Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo News magaalada Ceerigaabo